isu soo baxan oo ahaa mid ballaaran isla markaasina lagu muujinayay sida bulshada Soomaaliyeed ay uga soo horjeedo ugana xun tahay in la aflagaadeeyo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa waxa maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyadoo isu soo baxaasina ay qabanqaabiyeen maamulka iyo ardada jaamacaddaasi dadka isu soo baxay oo u badnaa dhalinyaro ayaa waxa wajiyadooda ka muuqanayay dareen cara leh oo ay ka qabaan aflagaadada loo geystay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee iyagoo si wada jir ahna ay ugu qaylinayeen halku dhigyo arrintaasi ay uga soo horjeedaan qaar ka mid ah ardada jaamacadda Soomaaliya ee isu soo baxa dhigayay ayaa dareenkooda u dhigay sida tan. Our prophet is our blood, he's our life, and we'd rather die 1,000 times rather than our prophet being even stung by a little thorn anywhere else. So we are telling the Christians or the Jews or anyone, we all respect your religion and we all accept all of you. We expect you to respect our religion also. We do not interfere with people's religion, be it a Jew, be it a Christian, be it a Buddhism. That's your religion. But ours is Islam, and Islam stands for peace. We are people of peace. waxaan aad iyo aad ugu xunnahay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka ku soo qoraayo kartuumada oo sida faasho xun ugu soo bandhigayo aad iyo aad ugu xunnahay محمود محمد أحمد صومالي دايم بيس محمود رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك كمسة هكرد اترسا صباش ليجز إن شاء الله صباش ليجز هيك كمسة محمود رسول الله هكرد اترميجز بيس مسلم دايز qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee sida weyn dalka looga yaqaano ayaa ka qayb qaadanayay isu soo baxan maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Sheekh Abuukar Xasan Maalin ayaana ka mid ahaa culimada iyadoo culimadu ay si qeyr ah uga hadleen sawir gacmeedyadaasi lagu aflagaadeynayo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee oo uu soo bandhigay wargeyska laga leeyahay dalka Faransa. Dr. Maxamed Xuseen Muumin oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Soomaaliya ee abaabulay banaanbaxan ayaa waxa uu ugu baaqay dawladaha reer galbeedka iyo dadkooda in ay ilaaliyaan xorriyatul qowlka oo aysan ku xadgudbin diinta iyo dadka muslimiinta ah. maamul ahaan iyo arday ahaan iyo inteenaba waxaan u direynaa risaalo caalamka jaamacadaha Faransa iyo jaamacadaha Europa iyo ardayda dhigata iyo kuwa wax qora waxaan u direynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam qulubta malaayiin iyo bilaayiin muslimiin ayuu ku dhex jiraa meel walba qoraxda ka soo baxda ay muslimiinta joogaan nabiga sallallahu alayhi wasallam karaamadiisa iyo magaciisa iyo sharaftiisana cid loo ogolaanayo inay ku xadgudubto ma jirto. Sheekh Abuukar Xasan Maalin oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee sida weyn dalka looga yaqaano ayaa waxa uu digniin u diray dawladaha reer galbeedka isagoo u soo jeediyay in haddii aysan arrintaasi jawaab ka bixin oo aan laga hortagin dhibaatada dadka faafinaya ay wajihi doonaan dhibaato uga imaata dadka muslimiinta ee ka carooday arrintani. adduunka waxaan u sheegaynaa gaar ahaan kuwan hadda filimka sameeya ama taageersan ama wadamada ay ku nool yihiin in ay ka joojiyaan oo ay ka dhiidhiyaan oo aysan kicinin dareenka dadka muslimiinta ah maxaa yeelay dadka muslimiinta ah dareenkooda oo la kiciyo waa awoodda ugu ballaaran ee dhaqdhaqaaq ku samayn karta adduunka dhan laga dareemi doono haddii dareenka muslimiinta mar dambe la kiciyo marka waxaan ugu baaqaynaa kuwa gaalada ah ha isku kicinina dareenka muslimiinta ah waxaadna u adkaysan karin laba qof oo muslimiin ah oo wadamadiina ku nool uma adkaysan doontaan dareenku ay muujin doonaan uma adkaysan doontaan marka sidaa awgeed waxaanu leenahay amnigiinna iyo siyaasadiinna u daryeela naftiinana daryeela oo dareenka muslimiinta ha isku kicinina waxaan kaloo ugu baaqaynaa dadka muslimiinta caalamka guud ahaanba على مستوى الحكومة إن برنامج كان مظاهرات لقى سمايو oo shacabka kaliya lagu siman laakiin madaxweynayaasha caalamka muslimiintu inay ka hadlaan. wargeyska Sharleed oo fadhigiisu yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa dhawaan waxa uu soo daawacay kartoonno uu ku aflagaadeynayo Rasuulullaahi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Ahmed Cali Kaahiye SNTV magaalada Muqdisho. gaar ahaan shacbiga Soomaali waxaan u sheegaynaa haddaad nafsadaada jeceshahay haddaad awlaadaada jeceshahay haddaad adeerkaa jeceshahay haddaad abtigaa jeceshahay haddaad hooyadaa jeceshahay haddaad qof walba aad jeceshahay nabi maxamed ka jeclaa u danqo sida shuqul uu sheegay waa inaan u danqano waa inaan u danqanaa marka maxaan ugu danqan karnaa marka maxaan sheegi karnaa waxaan sheegi wixii diintana fartay wixii diinta islaamka ay qabto ayaan ummadayna u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa marka ugu horeysa inaan lacnadayno oo aan raalli aan ka ahay waxaan quraanka baa nafaray walcanhum lacna kathiira quraanka baa oranahay والعلو في الدنيا والآخرة تبالي waa lacnadayna waa ka soo horjeednaa mana ogolin mana ogolaanayno
shacbigaynana waxaan u sheegaynaa inuu fikraddaas ou nala qabo, dawladayna ay nala qabto, dadkayna ay nala qabaan. maxaa yeelay muqadasaadka weyn ama muxtaramaadka weyn, muxtaramka weyn maanta nabi maxamed ma jiro calayhi salaatu wasalaam, lana heli maayo. waa kii adduunka iyo aakhirada nagu samata bixiyey. adduunka samata baxayna iyo hidaayadayna iyo hanuunkayna iyo barwaaqadayna diinta islaamka asal u ah. khayr qabta hadday ku jirto waxaa la rabaa mowqif shujaac ah oo raganimo leh inay qaataan. ficilkan wuxuu ka soo fulay waddan weyn oo majlisul amniga ku jira oo la yidhaha faransa. marka hadal yani ficilkaa xun ay samaysteen wax u dhigma inay la hadlaan, xagga calaaqaadka inay kala hadlaan. muslimiintu waxaa waye tharwada adduunka ku jirta ama shidaalka adduunyadu ay ku kala socoto wuxuu ka soo baxaa wadamada muslimiinta badankiisa. batroolkay silax ka dhigan karaan oo ku dagaalami karaan. adduunyada masaalix, tabaadulul masaalix baa jirta, waxay badan baa la isdhaafsadaa. gaalada muslimiinta kama maaranto. xoolaha muslimiinta carabta iyo khaliijka ayay ku kala socdaan, maraykan iyo faransiis iyo gaaladu ayay ku kala socdaan. marka si raganimo le inay halkaa uga hadlaan oo yidhaahdaan annaga muqadasaadkanaga iyo diintanada waxba kama sheegi kartaan, wax badan baa isku bedeli lahaa. hadda ka hor yani markii ingiriisku uu dicaayadeeyey mathalan sacuudiga qoyska boqortooyada mowtul amira filinkii ahaa, sacuudigu wuu ka gilgishay, calaaqaadkiibaa xumaan buu yidhi, safiirkiiba u yeedhay. war maanta mowtul amira arrintu ma ahayn, nebi maxamed baa wax laga sheegay calayhi salaatu wasalaam. marka waxaa la rabaa muslimiintu mowqif sidaas inay qaataan baa la rabaa. arrinta way khusaysaaye waa inay ka hadlaan. in culummada iyo masaajida keliya loogu ekeeyo ma aha, ayaga sooma khusayso. xilkii ayaga ahay, ammaanadii ayaga ahay. xilkooda waxaa weeye wax ugu weyn waxaa kamid ah xaraasat lcaqiida, inay diinta ilaaliyaan, amniga inay ilaaliyaan, ummadda danteeda inay ilaaliyaan. annaga dan nooga weyn ma jirto haddii la ilaalin waayo nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka waxna loo qabtay male.